ninkii waxa uu ku sigtay in uu shaqada ka daaho, sidaas darteed waxa uu bilaabay in uu ku wado gaadhiga xawaaraha ugu sarreeya. Markii uu maray nalcas, gaadhi boolis ah ayaa bilaabay in uu eryado. Halkii uu ka istaagi lahaa, waxa uu sameeyey leexasho xirfad leh, kadibna waxa uu si toos ah u dhigtay gaadhiga hortiisa saldhigga booliska. Kadib waxa uu u sheegay askarigii taraafikada in tigidhka gaadhiga lagu reebo sababtoo ah wuu ka daahay shaqada. Askarigii wuu yaabay, ninkaasna waxa uu noqday xubin cusub oo ka tirsan kooxda SWAT. Markii uu arkay sida uu u halis badan yahay, Kabtan Hondo markiiba wuu necbaaday. Waxa uu ku dhaliilay Jim in uu ku sigtay in uu daaho. Markii Jim isku dayay in uu sharaxo, Hondo ayaa ka dhex galay isaga oo aan dhegaysan. Kadib waxa uu ku canaantay in uu xirnaa dhar khaldan. Jim wuu garwaaqsaday khaladkiisa. Nasiib darro, maalintaas ma noqon mid uu filayay sababtoo ah howlgalka Kabtan Hondo helay waxa uu ahaa oo keliya ilaalinta nidaamka isu soo bax dadweyne. Sida amarka sare ahaa, looma oggolayn in ay la dagaalamaan shacabka, waxaana laga rabay in ay hagaajiyaan xiriirka bulshada. Isla markaas nin ayaa khudbad jeedinayay, balse ilbiriqsiyo kadib, ninkii agtiisa joogay ayaa si lama filaan ah loo weeraray. Dadkii waa kala carareen. Saaxiib, ugu dambayn waa guul darreste. Anigu ilaa hadda 20,000 follow ma gelin. Ninkii aan la tartamayay wuu galay 20,000, asagana farta ayaa laga saaray lacagtii oo ahayd $100. Saaxiibayaal, maxay tahay xaasidnimo? Hadda wax macquul ahayn ayaa la ii ballan qaaday 2 maalmood ee ciida kadib haddii aan galo 20,000 follow in la isiin doono $100. Saaxiib, adiga ayaa kaaga baahanahay caawimaad ee saaxiib iisoo follow gare. Hondo si degdeg ah ayuu u ogaaday halka uu toogtuu joogo, wuxuuna la wadaagay kooxda. Markii ay maqleen Jim waxa uu hore ugu orday rasaas culus dhexdeeda. Geesinimadiisa ayaa ka dhigtay kuwa kale kuwa aad u walwalsan. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo uu dadaalay, weli ma uusan helin toogtaha. Kabtanku waxa uu ku dhaliilay ficilkiisa halista ah, balse Jim wuu diiday. Hondo waxa uu uga digay oo keliya in uusan naftiisa halis gelin, kadibna wuu ka tegey. Markii ay ku noqdeen saldhigga, waxa ay ogaadeen in arrintu aad uga adag tahay. Iyagoo adeegsanaya muuqaalo kormeer ah, waxa ay aqoonsadeen toogtaha. Markii uu madaxooda ogaaday arrinta, madaxii sare markii uu warka helay, aad buu u carooday, wuxuuna amar ku bixiyey in si buuxda loo baaro xaafadda. Dabadeed Hondo waxa uu aaday dukaan timo jare ah oo ahaa meel si fiican loogu wadaago xogta. Isaga oo adeegsanaya hadal macaan, si fudud ayuu u helay xog muhiim ah. Haweeney ayaa sheegtay in saaxiibteed ay aragtay toogtaha oo baxsaday, sidaas darteed waxa ay aadeen inay su'aalo weydiiyaan saaxiibtaas. Si dhaqso ah ayay u heleen milkiilaha gaadhiga, balse milkiiluhu si cad ayuu u nacay booliska. Waxa uu dalbaday in ay ka tagaan. Dabeecaddiisa walbahaarsan ayaa isla markiiba dhalisay shaki, balse Hondo ma hayn caddayn adag, sidaas darteed waxa uu qarsaday xanaaqa. Isla wakhtigaas, wicitaan gargaar ah ayaa ka yimid raadiyaha, markaas si ku meel gaar ah ayay u joojiyeen cadaadinta milkiilaha gaadhiga. Waxaa la ogaaday in nin uu soo galay saldhigga booliska. Wuxuu u muuqday mid jahawareersan oo walaacsan, balse waxa uu go'aansaday in uu sheego wixii uu ogaa. Waxa uu sharaxay in uu lahaa saaxiib hore u ahaa toogte. Saaxiibkaas waxa uu ka soo laabtay adeeg ciidan dhowr bilood ka hor. Ninku waxa uu ka shakiyey in saaxiibkiis yahay toogtaha, sababtoo ah saaxiibkiis ayaa la waayey isla markiiba kadib weerarka. Markii ay heleen xogtan, Hondo iyo kooxdiisu si degdeg ah ayay u aadeen guriga toogtaha. Markii ay xoog ku galeen, waxa ay heleen 2 qof, balse midkoodna muhiim ma ahayn. Si fudud ayay u qabteen. Inkastoo aysan helin toogtaha gudaha, howlgalku waxa uu soo saaray arrin muhiim ah. Waxay heleen qorshayaal faahfaahsan oo ku saabsan dhaca bangi oo ku sawiran derbiga, sidoo kale sawir koox ciidan ah ayay ka aqoonsadeen tuhmanayaal lala xiriirinayo kiisaskii dhowaa, iyo sidoo kale milkiilaha goob qashin lagu ururiyo. Waxa ay si cad u fahmeen in dhammaantood wada shaqaynayeen. Waxay abuureen dhacdooyin rabshado leh si ay u mashquuliyaan booliska, si ay ugu suura gasho inay fuliyaan dhaca bangiga. Hadda oo qorshihii la fashiliyey, waxaa la gaaray wakhtigii kooxda SWAT ay ku soo dhowaan lahayd. Way kala qaybsameen. Hondo waxa uu u dhaqaaqay saqafka sare halkaas oo toogtuhu ku dhuumanayay, halka koox kale ay u baxday raadinta milkiilaha gaadhiga. Kooxdii kale ma aysan helin milkiilaha gaadhiga, balse fariin uu ka tegay ayaa muujisay in qorshaha dhaca uu horay u socday.